siyaasi James Sidiq Ali oo ka mid ah mas'uuliyiinta xisbiga maxaafidka ee kulmiye oo maanta kulan warbaahineed ku qabtay magaalada Burco ayaa waxa uu shirkiisan jiray ugu horeyntii uu kaga hadlay isku shaadhayntii uu dhawaan uu sameeyay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxana uu siyaasigu saliig weyn ka muujiyay xubnaha cusub ee golaha wasiirada ee dhawaan madaxweynuhu soo magacaabay isagoo siyaasigu uu sheegay boosaskaasi madaxweynuhu wasiiradan u soo magacaabay inay ku haboonayeen mas'uuliyiin uu sheegay inay ka tirsan yihiin xisbiga kulmiye isla markaasina dadaal weyn u galay sidii xisbigu mar labaad u soo bixi lahaa siyaasigu arrimahaasi ka hadlaya waxa ka mid ah hadaladiisii isku shaandhayntii dhaweyd ee uu madaxweynaha qaranku sameeyay kulli isku shaandhaynta waxa ka muuqday oo aynu ku arkaynay amba dadku aad u hadalhayeen xubno ka mid ah asxaabta mucaaridka xukuumaddii hore ee madaxweyne Muuse Biixi Cabdina way ku jireen tan maantana way ku jiraan qolyaha iyaga kulmiye ee ka mid ah xusbi xaakimka kulmiye runtii ma aanan jeclaysan laakiin hadday madaxweynaha noqotay isagoo siyaasadiisa u arkay inuu saa wax soo dhiso runtii waanu la shaqaynaynaa kuwa muxaafidka kuwa mucaaridka uu ka soo xulayna waa la shaqaynaynaa kuwa mucaaridka uu ka soo xulayna waa la shaqaynaynaa kuwa muxaafidka xulayna waa la shaqaynaynaa inkastoo aanu jeclayn annaku joogna in aan oo raggii xusbiga dhisay ee tacabka geliyay ee maalka geliyay ee juhdiga badan geliyay ee ku soo tabcay annakoo joogna in aan cid kale loo gudbin haddana haddii siyaasadii madaxweynuhu caynkaa noqotay runtii waa sabooraynaa sidaa wada ogtihiin maxamuud xaashi cabdi oo ah wasiirkii hore ee madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland waqtigii dawladii Siilaanyo ahaana wasiirkii duulistii hawada ugu muddada dheeraa runtii wuxuu shalay media u sheegay amba waraysi laga qaaday oo hordhiciisii la soo geliyay warbaahinta uu ku sheegay in uu u taagan yahay jagada madaxtinimada ee xusbiga kulmiye runtii xaq buu leeyahay waa qof kastoo muwaadin reer Soomaaliland inuu iska soo sharaxo xusbiga kulmiye isagoo maraya qaababka iyo xeerarka xusbiga sidoo uu xudhigayo xaq buu leeyahay qof kastoo muwaadin inuu soo sharaxo anigana ku dhaho laakiin kullay waxaad arkayseen madaxweynaha kubad ciyaaraya oo inoo message noo diraya inuu wali nin aan gamekii siyaasadda aan hawli ka dhadhaweyn inuu yahay madaxweyne message buu inoo diray siyaasadeed waa arkayseen isagoo kubad ciyaaraya kuna la talagelin inuu ka fadhiisto sidii madaxweynihii hore Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo marka madaxweynuhu inuu mar labaad soo sharaxaan xaq buu leeyahay maxamuud xaashi cabdina xaq buu leeyahay xeerka xusbigana lagu kala bixi doonaa waana la tartamaya runtiina qof kastoo muwaadin oo ka mid ah xusbi xaakimka kulmiye oo xeerku u ogolaanayo inuu sharaxo aad iyo aad baan soo dhaweynaynaa siyaasiga oo geesta kale hadalkiisa sii wataa waxa kale uu ka hadlay muddadii 2 sano ahayd ee madaxweynaha Soomaaliland uu talada dalka hayay waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu madaxweynuhu qabtay madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland runtii muddada 2 sano ah ee uu xilka hayay waxyaabaha la taaban kara ee waxqabadkiisa inuu soo qaadan karno in isdul taagi karno waxa ka mid ah arrintii dhalinyarada ee shaqo qaran oo runtii dhalinyaro badan oo reer Soomaaliland ah oo marka aad dhalinyarada dhex gasho aad wareysato ay ku sheegayaan in intii shaqo qaran la bilaabay tahriibtii yaraatay dhalinyaradii guud ahaan shaqo qaranna wax si temporary uga hawlgala wasaaradaha qaranka iyo wax ciidan tareerin ahaan ugu jira iyo wax shaqaale ay u qaadatay hay'adii Singapore Biosilk marka runtii waxay arrinkaas noqon karaa waxqabadkii koobaad ee xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi runtii waa waxqabad la taaban karo maanta oo aynu marayno ay xukuumaddu laba jirsatay runtii waxaan jeclaan lahaa iyadoo awal aynu duruufaha ay xilka kula wareegtay iyo qaab dhismeedkii xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi ee cusbaa iyo la qabsigii maamulka inagoo ku tixgelinaynay maanta waxaynu uga fadhinaa kol haddii 2 sano laga joogo waqtigii la doortay waxqabad muuqda Cabdiraxmaan Camaar telefishinka caalamiga ee Som News magaalada Burco.